wasiirka diinta iyo waqaafta Soomaaliland Sheekh Khaliil Cabdilaahi Axmed oo wehelinaya wasiir dowlaha wasaaradda waxbarashada culimaadudiin salaadiin cuqaal iyo waxgarad kala duwan ayaa maanta dhagax dhigay dhismo cusub oo casri oo yeelan doonta jaamacadda Islaamiga Al-Najaax Burco xaflad ballaaran oo loo qabtay dhagax dhiga dhismahani cusub ayaa ugu horeyntiiba waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha jaamacadda Al-Najaax Burco Dr. Faysal Maxamed Cali iyo Sheekh Cabdilaahi Baasho oo gudoomiyaha boorka jaamacaddaasi xafladan walaalayaal waxay ku saabsan tahay سنة هربا وتلمامي إن معتا وباللابمايو دسمه جامعة النجاح اسمها سنة بوركا بكم وقتولا ليال حكم إذا صدح دسمه ووين ودسمه ياشا هلكا يسكحي جاءه وحوي الله قلت لك علي قوبته وحبرشادا أنا قلت لك علي إن توبك السنة صوص إن شاء الله تعالى أرضيك استو جامعة النجاح قاعدته أما كو قبل كتشوغا هالنقدان ama kuwa meel kale ka yimaadayba ha noqdaane meeshii ay wax ku dhigan lahaayeen waxa isaguna jira runtii dhismo kale oo kuwa la mid ah oo loogu talagalay maamulka waxa ka mid ah hoygii macallimiinta maadaama jaamacadda imika ay wax ka dhigaan macallimiin ajnabi ah masaajidkii baytullaahigi baa ka mid ah waxa ka mid ah hoolkii lagu shireeyay waxa ka mid ah hoolkii maktabadda ama library-ga la dhigayay marka waa dhismo la oran karayo waa dhismo mutakaamil waxaanuna qiyaasaynaa insha Allah ta'ala in aan dhismaha maanta bilaabmay ilaahay haynoo dhameeyeen in aan dhismo labaad aan jaamacaddu u baahan doonin ugu yaraan 10 sanadood insha Allah ta'ala soo socda hawshani ama jaamacaddani waa jaamacad ummaddu ay leedahay waa jaamacad community-gu uu leeyahay waa jaamacad reer Togdheer iyo reer Burco ay leeyihiin waa jaamacad Soomaaliland ay leedahay waxaynu rajaynaynaa inay noqoto iftiin ka soo dhex baxay geeska Afrika waxay la tahay jaamacatu Najaax way najaxday waxay la tahay sanadkii saddexaad way saddex jisatay himladeedu waa weyn tahay hadii Burco iyo Soomaaliland oo kaliya lagu tilmaamo waxaan leeyahay geeska Afrika oo dhan baa jaamacadda ka faa'iideysan doonta qaabka ku socoto waa jaamacaddii koowaad dalka la keeno luqada carabiga ku baxda waxa wadan wax dadka oo dhan wada anfacaya ilaahay haydu ku guuleeyo jaamacadda haleeswada barbar taago dhismaheeda ilaahay waxaanu weydiinayna jaamacadda cidda loo dhisay hadday dawladda tahay iyo hadday siyaasiyiinta tahay iyo hadday suldaamada tahay iyo hadday uqaasha tahay iyo hadday ay waxgaradka tahay cidii iyo tishaarta hadday tahay ilaahay waxaanu weydiinayna jaamacadda cidii loo dhisay ilaahay dhiso ka dawladda hoose waxaanu ballan qaadaynaa awoodayada wixii ay noo saamaxdo wadada soo gashay jaamacadda Najaax ee imika la dhisayo waxaanu halkan ka ballan qaadaynaa inaanu si degdeg ah awoodayada iyo barnaamijka ayaga qorshaha iyaga wadooyinka inaanu qayb weyn ka qaadan doono bilaabi doonana insha Allah ta'ala ilaahay baan ugu mahadnaqayaa waxaan rajaynayaa insha Allah jaamacadani in ay inoo hirgasho waana hirgelaysaa imika way inoo socotaa inuu dhismaheedana inoo hargalo waxaan ballan qaadaynaa hiiliyahooda inaan garab taaganahay gudoomiyaha jaamacadda Najaax Dr. Faysal Maxamed Cali iyo Sheekh Cabdinaasir Xaaji Axmed ayaa fariin u diray bulshada annagoo maanta ku sugan oo matalayna jaamacadda Najaax iyo culimadii wadanka waxaanu ka soo jeedinaynaa baaqaas oo ku wajahan ummadda muslimiinta ah ee Soomaalida ah ee maanta na maqlaya waxaan u soo jeedinaynaa baaq ah jaamacadda maanta dhismaheedii uu ka bilaabmay oo waxa weeye wax ku filan aan loo haynin inay ka qayb qaataan oo qofku uu ka geysto wixii uu awoodayo sadaqa loogama hadho waxaad haysataa way yar tahay waxaan leenahay hal degdego oo jeeb gacanta hal geliyo oo nin walba waxaad heli karto aad bixin karto waxaan rajaynaynaa insha Allah ta'ala inaad si fiican uga qayb qaadato wasiir dowlaha wasaaradda waxbarashada Maxamed Xaaji Aadan iyo wasiirka diinta iyo waqaafta Soomaaliland Sheekh Khaliil Cabdilaahi Axmed ayaa ugu baaqay guud ahaanba bulshada inay ka qayb qaataan dhismaha jaamacaddani waxaan filayaa jaamacaddan ilaahay inoo suurto geliyay waxay timi waqti aynu u baahnayn oo bulshadeenu ay u baahnayd oo ay ka raagtay waxaan maleynayaa dalkan waxaynu ka joognaa xornimadiisa oo qaatay ilaa 750 sanadood oo aynu ahayn shacab muslin ah jaamacad ku saabsan daraasaad islaamiya waxaan maleynayaa inay tahay jaamacaddii koowaad waqtiga dheer sidaa daraadeed way mudan tahay inay bulshada waxa weeyaan geeska Afrika iyo bulshada Soomaaliland
iyo dhammaanba dadka af soomaaliga ku hadla ay muhiim u tahay kana qayb qaataan wax ka barashadeeda iyo wax ku bixinteeda labadaba waxna ummad yani asalkeedu yahay ummad muslimiina maantana inaynu jaamacado diinteenii inagu soo dabaala dalku wuxuu u baahan yahay meel daraasad lagu sameeyo oo aqoon-yahanku ay cilmi ka fidiyaan dalkeenna hadday tahay nooc kasta shareecada marka la leeyahay waa asaaska uune laakiin dhismaha dalku waa shareecada dalkeennan iyo tawxiidkan iyo calankeena saara dusheennana wax kala sheegi maayo wuxuu sheegayaa uun ummaddanu inay tahay ummad xaqiiqatan muslima oo loo baahan yahay islaamnimadoodii inay noloshooda ku xaqiijiyaan dalkooda ku xaqiijiyaan caalamkana ay u noqdaan tusaale fiican oo lagu daydo waa maxamed ibraahim british TV-ga qaranka Somaliland Burco.